runtii wixii la dhihi lahaa saaxiibkay ayaa yidhi reer Jubbaland runtii sharaf ay sameeyeen doorasho ay sameeyeen doorasho ay ugu danaynayaan dadkooda iyo dalkooda oo ugu danaynayaan wanaagii madaxweyne Axmed uu dalkan ka qabtay ayagoo u abaalgud u sameeyay inuu mar labaad iyo mar saddexaad inuu hogaamiyo runtii ani reer Jubbaland taas waxaan leeyahay waa si geesinimo iyo aragti iyo wadaniyad iyo dal jacayl ah runtii taas ayaan u arkaa hoggaan ay u baahnaayeen waxqabadkiisii ay arkeen daacadnimadiisa arkeen islaamnimadiisa arkeen dhinac walba ay ka arkeen buu ahaa haddii maanta jid lalaala ay mari lahaayeen runtii ayagaa ku dhibtoon lahaa saan aaminsanahay doorasho meel kastoo lagu qabto adduunyada dowladaha ugu dimuqraadiyadsan 50+ la isku doortaa marka waxaan aaminsanahay inkastoo dad wax ka qaba ay jiraan dadka reer Jubbaland wanaagoodii iyo jaceylkoodii iyo aragtidoodii iyo wadankooda sidii wanaagiisa way muujiyeen runtii waa ugu hambalyeynayna waana ugu nimid calaamasaarkan waxaan u rajaynaynaa inuu guul noqdo annagana waa ka soo qayb galnay midda kale runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay reer Jubbaland waa soo halgameen wadankan dhinac walba ay ka soo halgameen haddii xorriyadiisa hore ay tahay haddii dhibaatooyinkii dhacay oo hadda dheeraaday oo waqtiga dheer qaatay ka halgankoodii iyo wanaagoodii iyo Soomaali jaceylkoodii waxay soo reebteen ma lahayn hawadii Soomaaliya ka maqnaan jirtay oo muddada badan ay u qaylinayeen wax xaqeeqan noo soo celiyo ay lahaayeen in ayaga hadda xabad looga dhigo lagula dagaalamo runtii aad iyo aad aan ugu xunnahay waxaana leenahay ka raalihaada wax idin qabta maaha waxaan rajaynaynaa dowladda Soomaaliyeedna waxaan ka rajaynaynaa inuu caqliga shaqeeyo oo wada hadallo iyo walaalnimo lala galo reer Jubbalandna wixii ayaga ay jecel yihiin wixii laga tabanayo inta lagala hadlo si wanaaga loola hadlo ayaguna ay wixii wada hadal aysan ayagana diidin madaxweyne Axmedna aniga muddo badan soo wada shaqeynay shirar badan wada galnay weligiis meel kastoo la tago waxaan ku ogaaneen asiga wax dhexdhexaadiyo in la dhexdhexaadiyo aan diidanayn marka waxa kale oo ay xaqiijinaysa taas markii la doortay waxaan ka filaynaa inuu waraaq adag qori doono warqadda uu qoray oo dawladdu ugu baaqay uu leeyahay wixii dhacay waa dhaceen hal wada shaqeeyo runtii haddii intaa wax lagu qaadan waayo wax kale noqonay marka aad iyo aad aan idinkaga mahad celinaynaa waxaan rajaynaynaa in Soomaaliya oo nabada Soomaaliya oo mid ah Soomaaliya oo Soomaaliya iskale qofna maanta ma dhihi karo sidii aniga aan rabay si aan ahayn laguma socon karo Soomaaliya waxay ayada wada tiri oo isla ogolaatay lagu socon karaa taasaana meel lagu gaari karaa marka dowladda Soomaaliyeed dadka hoggaanka u hayaan waan leenahay dadka walaalihiin oo Soomaaliyeed oo mas'uuliyiinta la tashada waxa allaale wixii wax ka qabtiin wax ka dhaha dowladda dhexe marna lama inkirsana laakiin ayadu inay wax inkirto ayadu ay wax diido ninka reerka u weynaa inuu ciyaarta iyo uu bilaabo iyo dhibaatada uu bilaabo arrin nasiib daraawa runtii marka aad iyo aad aan uga xunnahay waxaan rajaynaynaa isku imaatinkeenu mid khayr ah inuu noqdo dowladuna inay inta wax ka fiirsato ayada international community bas waxyaalaha meeshan ka jiro xaqa intay ka aadaan sababta barlamaan waa had doortaa la yiri odayaal ha soo xuleena la yiri wada kasta waa la maray oo saxda ahayd marka in wixii ayaga inta la sameeyo haddana la yiraahdo hebel ma arki karno runtii ma shaqeynayso dhibaato badan laga kulmaa marka aad iyo aad u mahadsantiin soo dhaweyntaana soo dhaweyseen iyo walaalnimada reer Jubbaland dhammaantoodana waxaan leenahay guuleysta wadadii xaq ahayd waajibkeeda ku taagantiin insha Allah